dalalka caadiga ah ma ay laha wasaarad ka shaqaysa gurmadka iyo abaaraha iyo howlaha, balse waxay leeyihiin hay'ado kooban oo arrimaha ka shaqeeya oo dawliya ama agency. innaga teena duruuf bay ka turjumaysa. waxaan xasuustaa 2 sano ka hor waxaan isugu yeedhay wasaaradaha ana wasiirka dastuurka ah dowladda federaalka oo dhan, waxaan weydiiyey bal hawsha aad qabataan nooca ay tahay, dastuurka halkay ka soo gasho iyo himilada wasaaraddeena ay leedahay ila wadaag. waxaan markaa howlwadeennadii ku yidhi wasaaraddiina iyo tayduba hadafkoodu visionkoodu waa inuu ahaado labada wasaaradoodba inay isa soo xidhaan, oo maalinka wasaarad humanitarianka la xidhiidha Soomaaliya aan u baahnayn waxa weeye wax soo saarkeedii iyo dhaqaalaheedii iyo dowladnimadeedii ayaa hana qaaday. maalinka wasaaradda dastuur la soo xidhayna waxa weeye siyaasaddii Soomaaliya salkay dhigatay oo sharci bay yeelatay, oo hadday u barato maxkamadda sare ama maxkamadda dastuuriya baa qodobadii dastuuree la qabo ama isbeddel ka imanayso interpretation ku samayn doonta ama ka turjumi doonta. marka waxaan horta run ahaantii qiraynaa in madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha xukuumaddan dal qaran xamse cabdi barre horta inay qaadeen tallaabooyin waaweyn oo dalkan u jihaynaya sidii xulul waarta loogu heli lahaa. intaanan wasaaraddan hawsheeda soo gelin, wasaaraddani waa sida daadka oo kale ah, biyuhu markay soo fatahaan oo ay dadka gaadhaan bay wax ka qabanaysa. laakiin waxaa jira institutionno kale iyo wasaarado kale oo la rabay biyahaasi marka horeba inaan soo fatin wax ka qabtaan. waxaa ka mid ahayd department dhan oo ka tirsanaan jirtay xafiiska ra'iisul wasaaraha oo la oran jiray agaasimka cimilada ama biyada iyo deegaanka. horta agaasinkii waxaa laga dhigay wasaarad buuxda. tallaabadaasi waa tallaabo muujinaysa in go-aanku aanu ahayn in marba la dhayo dhaawicii jire ee marka horeba laga hortago in mushkiladuba aanay marka horeba meesha olin. waxay yarayn doontaa baahida aynu gurmad iyo gacan hoorsi iyo baryo adduunka ula gelayno. haddii aan bal idinla wadaago xaqiiqada maanta aynu ku shaqaynayno, culimada arrimaha gurmadka iyo abaaraha ka shaqaysa adduun weynaha oo dhan baa dee abaaruhu iyo xaaladahan isbeddelka cimiladu ay aada u saamaysay. waxay saadaalinayaan 6dii bilood soo socota ama 6dii biloodba inta abaartu ay jirto in loo baahan yahay lacag 500 iyo xoogay milyan oo dollar si loogu gurmado dad iyagoo baahan ee Soomaaliya. budgetka dowladda Soomaaliyeedna waad wada garanaysaa, waa iska around $1 billion. halkaasoo tabarteena kama cabiri kartaan. waa takhasbaysa marka in caalamku inoo soo gurmado sida wasiiraddu ay sheegaysay, marna imaaraadku, marna Maraykan iyo dalalka hay-adaha caadiga toos u taageera iyo World Food Programka iyo leh ay si joogto ay noogu soo gurmadaan, marna ilaa hadda Serbia oo gurmad inoogu soo socdo. waxay ka turjumaysaa xaaladda nusraya. horta wasiiradda iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha iyo shaqaalihii soo shaqeeyey badi ma muuqataan oo ilaacadaha kama muuqataan hawsha aad haysan intay leeg tahay. laakiin in halkan inta alaab laga qaado oo xaaladda amniga jirta aad og tihiin marba degme la geeya oo haddii la doono diyaarada lagu raro, Soomaalidu dhaliishay iska jeceshahay maxaa diyaarad loo saaraya bay leeyihiin. wax si walba oo qofka Soomaaliyeed inuu dhinto halis ugu jiro loogu geynayo waana la gurguranaya, diyaaradna waa lala raacay. marka waxaan rabaa inaan idinku bogaadiyo waa inaad ku soo shaqayseen iyadoo agab fara badan iyo run ahaantii kharash fara badan aydan hayn. waxaan ogahay inta goor wasiiraddu ay golahan ka sheegtay inuu markab soo xidhay ama shixnada ay timi oo kharashkii lagu qaadi lahaana aan lahayn. wuxuu sida marka ay u muuqdaan
uma fududa aad baan idinka mahad celinaynaa waxaa taa barbar socota maxaa hadda la yeelaya arrimihii abaaraha iyo gurmadkii iyo duruufahan dee muddo sii jiraya inta aynaan dabar goyn maxaa laga yeelaya walaalayaal aragtida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo guud ahaan xukuumaddan iyo hoggaanka dalku waxa weeye in la raadiyo xuluul waarta waan ku bilaabay oo wasaaraddan la aasaasay oo si joogto ah oo weyn oo baaxadda ula shaqayn doonta wasaaradahoo dhan waa tallaabo weyn in laga hortago in cilmi baadhis la sameeyo in degaankeenna dadkeenna wacyigooda la kordhiyo oo xoolaha aanay iska daba socono marmar waxaad moodaaba inay iska wada socdaan ay xoolaha la fadhiistaan oo dejiyaan oo dhulka marna la daaqo hermiyigeennii hore way lahaan jireen marba meel bay xoolaha ku foofin jireen inaga aqoon badnay baa soranaysaa marna laakiin hadda sida gawaadhadu u timi xoolihii marna ha la raro meel ha lagu habsala laleeyahayo mar haddii meesha ay dhowr boqol ama dhowr kun oo qoys isugu yimaadaan halka shay soo kordhaya waxa weye markiiba horta meesha inay naftarkeeda abaar ka dilaacdo marka aqoon baa loo baahan yahay wasaaraddaasi waa kii hadda iyo ayaamaha soo socdana fahamka iyo taladu waxa weeye in la xoojiyo hay-adaha dawliga ee jira ee sharciyadda leh ee arrimahan u igman xafiiska ra'iisul wasaaruhuna uu fududeeyo sidii loo heli lahaa institutions si joogto ah hawshan uga shaqeeya waxaad ogtihiin ergey baa hawshan u magacaaban oo dadaal fara badan ku jira door buu leeyahay hay-adaha kale dawliguna iyagoo iskaashanaya iyo shacab weynaha soomaaliyeed iyo culimada iyo bacmushtariguba abaartan si degdeg ah haddana hawl badan baa socoto oo maalin walba aan ilaacadda lala taagnayn laakiin waxa weeye faan oo le fari kama qodne waa in la kordhiyo dadaalkaa waana ahamiyadda u weyn ee ra'iisul wasaaruhu shalay madashiina uu ka sheegay mar walbo haddana uu sheego madaxweynuhuna ama khudbadda jimce ha noqoto ama goob kale ha noqoto mar walba uu ka hadlo annana aanu hariya habeen afka ku hayn doonno ficliyanna aanu ka shaqayn doonno hay-adaha kale howlahan ku luglana ee siyaabaha kala duwan uga shaqeeyana si dhow baanu ula shaqayn doonaa waxaad ogaataan sideedaba maqaadiire markay dhacdo ama biyabaxad ha dhacdo ama dabaylo ha dhacaan cycloneskan badaha ka dhaca ama roobba ha la waayey uma carbisnin marka arrimahan preparednesska la yidhaha habka frenchiga in loo diyaar garoobo waa wax u baahan in militarigeenu uu carbisan yahay mararkay qadhaadhaato ilan cudud aynu leenahay weeye ciidanku muxuu ka geli karaa biliisku muxuu ka gelaya anigu waxyaabaha maskaxdayda aan ka maydhmin weli raad igu reeba waxaa ka mid a markii qarixii weynaa ee soobe u dhacay ee boqolaalka qof ee soomaaliyeed ay hal mar wada dhinteen ee aanu tagnay xarumihii caafimaadka ee meydkii uu tuuran yahay oo xataa bulsho ahaan aynaan kala sooci karin marmar waxaa la rabaa dhakhtarkii intaan la gaadhin in qof walba magaalada ku nooli uu fahmi karo first aidka see loo bixiya dhiigga see loo joojiya qofka xaggee laga xidhaya qofka haddii qoorta ay jabto waa in saa loo hayo la dhaqaajin la kala garto say halis ugu kala jiraan aqoon ballaadhan oo heer bulsho leh waxaan run ahaantii bogaadinayaa dhallinyaradii jaamacada wax ka baranaysa markaa ee sida joogta har iyo habeen u soo jeed mararka ay dhadhan yeelanayso soomaalinimada weeye marka aad arkayso wiil iyo gabadh yaroo 24 saacadood soo jeedoo shaqaynaya aad baan uga mahad celinaynaa in badanna way noo dhiman tahay si dowladnimaduna sideedaba waa iskaashi iyo iskab ee hal wasaarad hawl lagu koobayay markay soo degto wasiirka dekedda la rabaa inuu kuu furudeeyo shaqadii marka la rarayo wasiirkii gaashaandhigga lagaga baahan inuu ciidan intuu ku daro uu ilaa qoryo la gaadhsiiyo beliiskii baa loo baahan yahay hosbitaalkii baa loo baahan yahay marka anigu messageka mar walba aan rabo inaan gudbiyo waxa weeye si isku dhafan oo wada jira baa dowladnimadu ay u shaqaynaysaa qofba meel la fadhiisan maayo sharciyadan waa la ilaalinaya waad mahadsantihiin